Iyada oo ay sii kordhayso jahwareerka siyaasadeed ee Galbeedka Afrika, ayaa hogaamiye sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa ururka loo yaqaano FLA, oo magaciisu yahay Bilal Shariif, oo mar ballan qaaday inuu qabsan doono caasimadda dalka Mali ee Bamako, ayaa dhowaan ka soo muuqday istuudiyaha telefishinka Al Arabiya. Hogaamiyuhu ma uusan u fadhin halkaasi inuu ka sheekeeyo guulo uu gaaray, laakiin waxa uu u muuqday nin baryootamaya oo doonaya heshiis nabadeed oo mar hore dhintay in dib loo soo celiyo. Waa heshiiskii lagu galay dalka Algeria ee u dhexeeyay dowladdii hore ee Mali iyo kooxda hubeysan ee loo yaqaano FLA. Kadib 19 maalmood oo dalka Mali ay iska caabinayeen dagaal ba'an oo la doonayay in lagu dumiyo qarankaasi, dunidu waxa ay markhaati ka tahay isbeddel la yaab leh oo ka dhacay halkaasi, kadib markii ciidamada isku dhafka ah ee loo yaqaano Saaxil ay halkaasi ka dagaalameen, isla markaana ay dib u riixeen kooxihii dagaalamay. Kooxihii doonayay inay dumiyaan isla markaana ay gubaan Jamhuuriyadda Mali ayaa maanta ka baryootamaya telefishinada caalamiga ah si ay u helaan nabad dhexdhexaadisa labada dhinac. Maanta waxaynu falanqayn doonaa xaqiiqooyinka rasmiga ah, sida hal weerar oo lagu qaaday kayd shidaal uu u cuuryaamiyay duulaan weyn, iyo sida isbahaysiga gobollada la isku yiraahdo Saaxil ee hoos yimaada hogaamiyayaasha geesiyada ah sida Ibrahim Traoré iyo Assimi Goïta ay u jebiyeen shabakadii wakiilada shisheeye. Haddii aad aaminsan tahay kacdoonka gobonimo-doonka ah ee ka socda qaaradda Afrika, qaybta hoose ee faallada kommentiga ku qor Afrikada xorta ah. Fadlan subscribe channelka oo ka mid noqo saaxiibada inagu xiran. Waxaa saacadihii ugu dambeeyay isu soo tarayay quusta Bilal Shariif, oo ahaa hogaamiye caan ah oo ka tirsan ururka loo yaqaano FLA, oo ah urur hubeysan oo ka dagaalama dalka Mali, ayaa doonaya in dib loo soo celiyo meydka heshiiskii Algiers. Muuqaalka ninka fadhiya kaamirada tayada sare leh horteeda oo ku dhex jira istuudiyaha raaxada leh waxa uu sheegayaa sheeko aad u xamaasad badan, isla markaana erayadeeda uu ku qarinayo waxyaabo kala duwan. Bilal Shariif waxa uu ka soo muuqday telefishinka Al Arabiya isaga oo isku dayaya inuu fariin u diro kala bar dunida Carabta, laakiin waraysigani ma ahayn baa la yiri bandhig awoodeed ee waxa uu ahaa qayladhaan uu doonayo inuu caawimaad ku helo. Bilo dhowr ah ka hor waxaynu maqlaynay in kooxda loo yaqaano FLA ee ka dagaalanta waqooyiga dalka Mali ay ku faanaysay cudud iyo awood ciidan oo ay soo bandhigtay, iyada oo ballan qaaday in bisha Maarso dhammaadkeeda dowladda Bamako ay dhici doonto, isla markaana ay iyagu xukunka la wareegi doonaan. Laakiin isbeddelka dhacay ayaa wax walba beddelay. 3 asbuuc gudahood kooxdan awooddoodii waa la soo afjaray, waxa ayna ku soo hareen codsi iyo quus ay ku doonayaan inay ku helaan wadahadal iyo nabad dhexdhexaad u noqota labada dhinac. Shariif waxa uu sheegay in kooxda FLA ay hadda diyaar u tahay heshiiskii Algiers ee mar hore burburay, laakiin aynu eegno xaqiiqada heshiiska Algiers. Heshiiskii Algiers ma ahan dukumiinti nool, sharci ahaan iyo rasmi ahaan. Dowladda Bamako ayaa joojisay 25 Janaayo sanadkii 2024, sanado badan waxaana loo isticmaali jiray heshiiskani sidii gaashaan ay kooxaha hubeysani dib isugu ururiyaan, dib ugu diyaargaroobaan, una sii noolaadaan sidii ay u gumaadi lahaayeen, sidoo kalena ay u dumin lahaayeen nidaamka dowladeed ee ka jiray dalkaasi. Hadda oo saadkoodii iyo awooddoodii la burburiyay, Shariif waxa uu weydiisanayaa in dukumiintiyada heshiiskaasi dib loo soo saaro oo dib loo cusboonaysiiyo, isaga oo rajaynaya in beesha caalamka ay ku khasbi doonto dowladda Mali inay dib ugu laabato dabinkii fashilmay in ka badan 10 sano ka hor. Waxa ugu daran ayaa ahayd inuu hanjabaad adeegsaday, isla markaana uu u hanjabay dowladda Mali, waxa uuna ka digay in haddii ay Mali aysan miiska wadahadalka ku soo laaban, in kooxda FLA ay mar kale ku beeri karto garabka hubeysan ee kooxda loo yaqaano GNIM oo ka dagaalanta dalka Mali. Tani ma ahan hanjabaad cusub ee warbixinta sirdoonka ah ee Sofinant Center waxa ay xaqiijinaysaa in kooxahani ay mar hore u shaqaynayeen sidii hal jid maalintii ugu horreysay ee weerarka bishii Abriil, markii lagu qaaday dalka Mali dagaal jihooyin kala duwan ah. Markaas oo ay lahaayeen waxaynu ku beeri doonaa kooxda ka dagaalanta dalka Mali ee garabka hubeysan ee dhinaca kale, waxayna si nuxur leh
u qireen in kooxdani ay si qoto dheer ay u leeyihiin xiriir labada dhinaca, iyaga oo weliba lagu tilmaamo inay yihiin isbahaysi u tashaday duminta dalka Mali. Xeeladda neef-qabatinta ah iyo istiraatiijiyadda gaarka ah ee Kidal ayaana wax walba beddeshay. Muuqaal ka yimiday waqooyiga Mali waxa uu beddelayaa si degdeg ah warbaahintii reer galbeedka oo dhan waxa ay qorayeen, waxa ayna saadaalinayeen dhiigbax weyn oo ku yimaada kooxdan iyada oo weliba dhulka lala simayo. Laakiin ciidamada qalabka sida ee Mali iyo taliska isku dhafan ee loo yaqaano African Corps waxa ay dejiyeen xeelad aad u casriyeysan oo loogu yeeray neef-qabatinta istiraatiijiyadda ah, halkaasi oo la doonayay in lagu burburiyo awooddooda kooxaha ugu waaweyn ee ka dagaalamayay halkaasi. Waxa ayna doorteen waddada saxda ah iyo samirka ayaa la yidhi, waxa ayna dhisayeen aag difaac oo xasaasi ah. Tani waa habka dagaalka cusub ee xeeladda Afrika, halkaas oo hadafku uusan ahayn keliya kooxahani in la burburiyo cadowga, laakiin muhiimaddu ay tahay in la badbaadiyo shacabka, sidoo kalena lala wareego dhulka muhiimka ah oo ay ka haystaan dalka Mali. Tusaale ahaan, gobolka loo yaqaano Ouek ee bannaanka ah iyo gobolka loo yaqaano Tasiiled, ciidamada Mali waxa ay go'aansadeen inay si isku duubni ah dagaalka u galaan, isla markaana ay burburiyaan kooxdan loo yaqaano FLA. Waxa ayna isticmaaleen droneska iyaga oo ku dhufanayay difaacooda, sidoo kalena beegsanayay hogaamiyeyaasha ugu sarreeya ee kooxahaasi. Markii ay kooxda FLA ay weysay dhimashadooda taliskii halkaasi lagu laayay, waxa ayna u ordeen xarumaha wararka ee caalamiga iyaga oo wata muuqaallo drones ah oo ay ku sheegeen in shacabkii goobta ku sugnaa oo dhan la gumaaday. Waana khiyaamadii ugu faca weyneed ee lagu qoro dagaalka buugga militariga. Marka lagu dhufto ayaa la yidhi daroonka, waxa ay sheegayeen in xasuuq loo geystay guud ahaanba shacabka ku sugnaa halkaasi, laakiin dadka hadda waa ay fahmeen ujeeddada iyo khiyaanada ay kooxdani wateen. Xitaa qurba joogta aqoon-yahanada ah ee laga gedi lahaa arrintani waxa ay si qoto dheer u fahamsan yihiin baa la yidhi dhibaatooyinka ka socda halkaasi. Waxa ayna la socdaan khariiradda furan iyaga oo xogta satellite-ka si fiican u arkaya. Waxa ayna arkeen in Mali ay dooranayso saxnaanta iyo halkii ay ka dooran lahayd dhibaatooyinka loo geysta xasuuqa shacabka. Anshaxani waa mid si toos ah uga soo horjeeda ayaa la yidhi qorshooyinkii hore ee NATO oo ay ku samaysay Liibiya sanadkii 2011 ama wixii Faransiisku ay ku sameeyeen intii lagu guda jiray 10kii sano ee howlgalkii fashilmay. Mali dib uma guranayso oo waxay u dagaalamaysaa xuquuqdeeda iyada oo raadinaysa ayaa la yidhi madax-bannaani dhab ah. Haddii aynu dib u milicsano taariikhda kooxdan loo yaqaano FLA, waa mid ka mid ah jamhadihii hubaysnaa ee ugu weynaa ee ka soo jeeda dhalasho ahaan qoomiyadda loo yaqaano Tuareg ee degta waqooyiga dalka Mali, kuwaas oo muddo dhowr iyo 10 sano ah dagaal kula jiray dowladda dhexe ee dalkaasi oo xarintoodu tahay magaalada Bamako. Ujeeddada koowaad ee kooxdani waxay ahayd in ay rabaan gobolka waqooyiga ee dalka Mali oo iyagu ay u yaqaaniin Aswad oo ay ka gooyaan dalka intiisa kale, halkaas oo ay doonayaan inay dhistaan dowlad madax bannaan ama gobol ismaamul gaar u ah iyaga. Gobolka Kidal ee magaalada Kidal iyo nawaaxigeeda oo ku yaalla waqooyiga Mali ayaana ah xarunta ugu weyn ee dhaqdhaqaaqa xooggan ay ku leeyihiin kooxahani, halkaasi oo inta badan ka dagaalamaan iyaga oo ciidamada qalabka sida ay iskaga hor yimaadiin. Heshiiskii Algiers waxa uu ahaa heshiis nabadeed oo la saxiixay sanadkii 2015, kaas oo dowladdii hore ee Mali iyo kooxahan hubaysan ay ku heshiiyeen wada hadal iyo in la dhameeyo mushkiladda. Laakiin dowladda hadda jirta ee uu hogaamiyo General Assimi Goïta ayaa heshiiskii si rasmi ah u laashay oo burburisay bilowgii sanadkii 2024, iyadoo ku eedeysay kooxdan loo yaqaano FLA in heshiiskaasi ay uga faa'iideysteen inay hub urursadaan iyo sidoo kale inay ku kacaan khiyaano qaran. Fadlan daawade, haddii halkan nala soo gaartay channelka, subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran. Waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaallo xiiso badan.